maxaad ka taqaanaa unugga ugu khatarta badan sirdoonka Israa'iil ama aan iraahno guud ahaan ciidamada Israa'iil? Unugga ay aadka uga baqaan wadamo fara badan oo weerari lahaa Israa'iil. Unuggan kama uu mid noqon karo qof aan Israa'iiliyaan dhalad ahayn, yacni qof hooyadiis iyo aabihiisba Yuhuud aysan ahayn. Unuggan kama uu mid noqon karo, yacni ciidamada Israa'iil dadyo fara badan oo kala duwan ayaa ka mid ah oo ka shaqeeya, laakiin unuggan cid aan reer banu Israa'iil dhalad ahayn kama mid noqon karto. Unuggan waxaa lagu magacaabaa magaciisa 8200 wuxuuna si gaar u hoos tagaa sirdoonka Israa'iil ee Mossad. Shaqadiisuna waxa weeye cyber security-ga. Unuggan cidda u shaqeysa lama yaqaano magacyadooda. Israa'iilna waxay isku daydaa in aan wax xog ah laga helin, xitaa cidda hogaamisa unuggan lama yaqaan. Unuggan dadka ka shaqeyn doona waxaa laga soo xulaa ardayda sanadkaas dugsiga sare ka baxay, gaar ahaan kuwa IQ-gooda iyo maskaxdooda ay aad u heer sareyso, jirkoodana uu dhisan yahay. Deedna ardadaas waxaa la geeyaa jaamacadda Israa'iil leedahay oo lagu magacaabo Ben Gurion. Halkaas ayaa muddo 3 sano ah waxaa aad loogu tababaraa culumta kala duwan ee kombiyuutarka, gaar ahaan sida coding-ka, programming-ka iyo waxyaalaha kale ee la midka ah. Unuggan dadka ka shaqeynaya waxyaalaha lagu tababaro ee laga rabo waxaa ka mid ah in ay yaqaanaan luqadda Carabiga iyo luqadda Farisiga ah ee Iiraan looga hadlo. Waana labada cadow ee Israa'iil ay aaminsan tahay in ay yihiin labada cadow ee ugu weyn ee ay leedahay. Unuggan shaqada ugu badan ee uu hayo waxa weeye in dowladaha cadowga ku ah Israa'iil xogtooda uu soo jabsado, sirahoodana uu dhageysto. Unuggan 8200 in ay jiraanba waxa la ogaaday kadib markii dowladdii Suuriya ee xoog lahayd waa intaysan burburin ay qabteen mid ka mid ah hogaamiyaasha unuggan. Deedna sirdoonkii Suuriya ee xoog lahaa ayaa gacanta ku dhigay, waxayna ka qaadeen ninka ay qabteen waraysi aad u adag. Isna wuxuu bixiyay xogo argagax leh. Wuxuu sheegay in ay dhageysan jireen hadal walba oo looga hadlo xafiis walba oo ka tirsan xafiisyada dowladda Suuriya. Sidoo kale waxa uu sheegay in goob walba oo lagu gaarayo go'aan masiiriya oo dowladda Suuriya siyaasadeeda ku saabsan ay ugu xirnaayeen qalabka wax dhageysta. Unuggan khatarta badan ee lagu magacaabo 8200 waa unugga 90% keena xogaha sirdoonka Israa'iil ay u baahan yihiin, mana jiro howlgal muhiim ah oo ay ka maqan yihiin. Unuggan oo shaqadiisa ay ka mid tahay in ay dhageystaan taleefanada madaxda Carbeed ayaa hadda kahor waxay si toos u dhageysteen wadahadal khadka taleefoonka ku dhex maray madaxweynihii hore ee Masar iyo boqorkii Urdun. Laakiin Carabtu beriga ma aysan ogeyn Israa'iil in ay haysato tiknoolajiyad u saamaxaysa in xogahooda iyo sirahooda lagu dhageysto. Ilaa waa dambe sida aan sheegnay, sirdoonka Suuriya ay soo sheegeen unug khatar badan oo 8200 la yiraahdo in uu ka tirsan yahay sirdoonka Israa'iil. Ninkan oo lagu magacaabo Afisha Ibrahim iyo hadda da'diisu ay tahay 48 sano jir ayaa wuxuu ka mid ahaa dhalinyaradii fursad u helay inay ururkan ka shaqo bilaabaan markii ay dugsiga sare ka baxeen. Waxa uu yiri, anigoo aad u da'yar ayaa waxaa la igu tababaray oo ii suurta gashay in aan jabsado xogaha laba dowladood oo ka mid ahaa dowladihii cadowga noo ahaa. Dadka inta badan unuggan ka soo shaqeeya waa dadka hadhow asaasa shirkadaha waaweyn ee tiknoolajiyadeed ee Israa'iil ay ku faanto. Tusaale ahaan, ninkan waxa uu asaasay shirkad la yiraahdo Wex, waana shirkad caan ku ah majaalkeeda oo dunida daafaheeda oo dhan laga yaqaan. Shirkadaha adduunyada ugu waaweyn ee cyber security-ga ka shaqeeya 15%. Hadda waa 15% Israa'iil ayaa iska leh, yacni waa percentage aad u fara badan. Waxaana la sheegaa in dakhliga Israa'iil 4 meelood meel uu ku tiirsan yahay oo uu ka soo xaroodo shirkadaha cyber security-ga iyo tiknoolajiyadda ka shaqeysta ee Israa'iiliyiintu ay leeyihiin. Yacni cyber security-gu waa dagaalka mustaqbalka ummadaha dhex mari doona. dowladdii iyo ummadii aan maal gashan aqoonteedana aan baran waa dowlad mustaqbalka la guumaysan doono, xogteedana laga qaadan doono. waayo maanta muhiim ma ahan in gantaalo iyo xabado lagu soo rido, iyadoona hal xabba lagu soo ridin ayaa xogtaada loo soo daadanayaa. sirahaaga xasaasiga ah ee kuwa ciidanka iyo kuwa dhaqaalaha ana hal mar laga qaadanaya.